Kelyuhu waa laba xubnood oo ka mid ah jirka kuwaas oo ku yaala qaybta hoose ee feedhaha iyo labada dhinac ee lafdhabarta. Waxay qabtaan shaqooyin kala duwan oo laga maarmaan oo nolosha. Tan ugu muhiimsan waxay tahay waxay shaandheeyaan waxyaabaha wasakhda ah, biyaha xad dhaafka ah, iyo waxyaabaha kale aan nadiif ahayn ee dhiigga ku jira. Waxyaabaha wasakhda ah waxa lagu kaydiyaa kaadi haysta kadibna waxa laga saaraa jirka iyadoo kaadi ah. Waxa kale oo kelyuhu isu dheelitiraan pH-ka, saarista cusbada ama milixda iyo heerka potassium-ta ee jirka. waxa kale ay soo saaraan hormoono xakameeya dhiigkarka iyo soo saaridda unugyada dhiigga cascas. Kelyahaaga ayaa weliba ku shaqo leh dardargelinta fitamiin D-ga oo ka caawinaya in dheefshiidku uu nuugo kalsiyamta, dhisidda lafaha iyo joogteynta shaqada murqaha. Joogteynta caafimaadka kelyaha ayaa muhiim u ah caafimaadka guud. Jimicsiga joogteynta jimicsiga waxay muhiim u tahay caafimaadka iyo badqabka kelyaha. waxay yareyn kartaa halista cudurrada kelyaha ee daba dheeraada. Waxay kale ay hoos u dhigi kartaa dhiigkarka waxaana kor u qaadi kartaa caafimaadka wadnaha kuwaas oo labaduba muhiim u ah ka hortagga dhaawaca kelyaha. Jimicsigu maaha inaad gasho ordo dhaadheer, waxa kaaga filan socodka, kaxaynta baaskeelka iyo jimicsiga fudud si sare loogu qaado caafimaadka kelyaha. Xakamaynta sonkorta dhiigga dadka qaba sonkorta ama macaanka ama xaalado sababi kara sonkorta dhiigga oo sarreysa ayaa dhaawici kara kelyaha. marka unugyada jirku aysan isticmaali karin glucose ama sonkorta dhiigga, kelyaha waxa lagu qasbaa inay si adag u shaqeeyaan si ay u shaandheeyaan dhiigga. sanado badan oo dadaal ah tan waxay ku horseedi kartaa waxyeelo nafta halis ku ah waqti dheer. si kastaba ha noqotee, haddii aad xakameyn karto sonkorta dhiigga waxaad yareyn doontaa halista dhaawaca ee kelyaha. cadaadiska dhiigga ee sarreeya wuxuu sababi karaa dhaawac soo gaadha kelyaha haddii dhiigkarku uu qofka haleelo iyadoo ay jiraan xaalado kale oo caafimaad darro sida sankarowga ama macaanka, wadna xanuunka ama kolestaroolka. Saameynta uu ku yeelan karo jirka waxay noqon kartaa mid weyn. qaab nololeedka iyo isbedelada cuntada ayaa laga yaabaa inay kaa caawiyaan yareynta cadaadiska dhiigga. miisaanka iyo cuntada dadka miisaankoodu sarreeyo ama kuwa aad u cayilan ama u buuran waxay halis ugu jiraan dhowr xaaladood oo caafimaad oo dhaawici kara kelyaha. kuwaas waxaa ka mid ah cudurrada macaanka, wadnaha iyo kelyaha. cunto caafimaad leh oo ay ku yar yihiin soodhiyam, hilib la warshadeeyo iyo cuntooyinka kale ee dhaawici kara kelyaha waxay gacan ka geysan karaan yareynta khataraha iyo dhaawaca soo gaadha kelyaha. waxaad xoogga saartaa cunista cuntooyinka soodhiyamta ay ku yar tahay sida khudradda cagaaran, kalluunka iyo midhaha oo dhan. cabidda biyaha waa arrin mudnaan dheeri ah leh, waana talooyin xasaasi ah inaad cabto 8 koob oo biyo maalintii. laakiin waa yool wanaagsan si saxa maxaa yeelay waxay kugu dhiirigelinaysaa inaad ka badbaado biyo yaraanta jirka. qaadashada joogtada ee biyuhu waxay caafimaad u leeyihiin kelyaha. biyuhu waxay caawiyaan in laga nadiifiyo soodhiyamta iyo sunta kelyaha. waxay kale oo ay yareeyaan halista cudurrada kelyaha ee daba dheeraada. dadka hore u lahaa dhagaxaanta kelyaha waa inay cabbaan biyo badan si looga hortago kaydinta dhagaxaanta kelyaha ee mustaqbalka. ha cabbi sigaar cabiddu waxay dhaawacdaa xididdada dhiigga ee jirka. tani waxay keentaa gaabis ku yimaada qulqulka dhiigga ee dhammaan unugyada jirka iyo kelyaha. sigaar cabiddu waxay sidoo kale sare u qaadaa khataraha kansarka kelyaha, balse joojinta cabidda sigaarku waxay hoos u dhigtaa khataraha kor ku xusan. cunista kiniinada haddii aad si joogtaa u qaadatid dawooyinka aan u baahnayn qoraal dhakhtar ee xanuuna baabiyaasha ah waxay sababi karaan dhaawac soo gaadha kelyaha. dawooyinka sida ibuprofen iyo naproxen waxay dhaawici karaan kelyahaaga haddii aad si joogtaa u qaadatid, sida xanuunada waqtiga dheer qaata, madax xanuunka, xanuunada lafaha iyo kuwa isgoysyada. dhagaxaanta kelyaha asal ahaan waa macdano iyo milixda badanaa kuwaasi guud ahaan waa calcium oxalate iyo milixda kelyaha waxaanay noqdaan kuwo adag ku samaysma kelyaha. inkastoo ay ku samaysmaan kelyaha haddana dhagaxaanta kelyuhu waxay ku samaysmaan qayb kasta oo ka mid ah habdhiska kaadimareenka. xaaladda biyo yaraanta ee jirka ayaa badanaa loo tiriyaa inay sabab u tahay samaysanka iyo isbedelada dhagaxa kelyaha gala, waana arrin saameynteeda leh. marka jirka biyuhu ay gabaabsi ku noqdaan islamarkaana dareere badan uu dibadda uga baxo iyaga oo kelyaha sii maraya waxay fursad sare u tahay macdanaha iyo milixda jirka ku jirta inay si aad isugu soo dhowaadaan oo ay isku qabsadaan, waana halka ugu horreysa ee dhagaxaanta kelyuhu ay ka bilaabmaan. biyaha joogteynta cabidda biyuhu waa midka ugu fudud noocyada lagu hortegi karo loona daweyn karo dhagaxaanta kelyaha gala. badanaa dadka aqoonta u leh arrimaha caafimaadka waxay soo jeedinayaan in la cabo maalintii ugu yaraan 2 litir oo biyo ah una dhiganta 18 koob iyo in ka badan. cabitaanka 12 koob oo biyo maalin kasta waa suurtagal inay kaa caawiso si fudud inay kuu soo dhaafaan ama ay si caadira u koraan oo ay ku ururaan kelyaha. liin la miiray liinta waxaa ku jirta maadada citrate
isku dhiskan ayaa kaa caawinaya burburinta kaalshiyamta ururtay ee keliyaha waxaanay hoos u dhigaysaa koritaankeeda. Cabitaanka 2 koob oo liin la miiray ah ka hore waxaa la cabayaa iyadoo caloosha qofka ay maran tahay subaxa hore, halka ka labaadna isna la cabayo saacado yar ka hor xilliga cashada. waxaana kaa caawin doontaa burburinta dhagaxaanta yaryar ee keliyaha ku samaysma. waxaana badanaa la soo jeedinayaa inaad ku samaysato gurigaaga, waayo waxaa suurtagal ah kuwa diyaarka ah ee suuqa lagu iibiyo inay sokor ku jirto ama aan si nidaamsan oo kugu habboon aan loo samaynin. khalka tufaaxa. khalka laga toojiyo tufaaxa waxaa sidoo kale ku jirta citric acid, taas oo kaa caawinaysa burburinta kaalshiyamta ururtay ee dhagaxa isu bedeshay. 2 malqacadood ama qaado oo khalka tufaaxa oo lagu qasay litir badhkii oo biyo ah waxay hoos u dhigaysaa calaamadaha dhagaxaanta keliyaha gala, waxaanay ka hortag u tahay samaysankooda. waxaa tala caafimaad lagu soo jeedinayaa in la cabo dhowr jeer maalintii, waxaanay wanaagsan tahay waxtarna ay leedahay cuntada ka hor in la isticmaalo. caws qamandiga waxaa ku jirta maado sare u qaadaysa saaritaanka xaddi badan oo kaadi ah, waa mid kuu saamaxaysa in dhagaxaanta keliyu ay si sahlan kaaga soo baxaan isla markaana ay hoos u dhigto khataraha samaysankooda iyaga. waxaa kale oo ku jirta antioxidants kuwan oo kaa caawinaya in habdhiska kaadi mareenka uu iska saaro macdanaha iyo milixda. waxaana u muuqeeg yahay caws tameerka oo badanaa dadka Soomaaliyeed ay u adeegsadaan kaliya xanuunka. saliid saytuun waa saliid adag isla markaana waxay kaa caawinaysaa inay si sahlan kuu soo dhaafaan dhagaxaanta keliyuhu iyadoo fudaydinaysa, waxaana yaraysaa heerka isliiska iyo xoqitaanka dhagaxaanta ee keliyaha kuwaas oo dhaawici kara kaadi mareenka. waxaa kale oo yareeyaan xanuunka iyo kaarka la dareemo iyadoo biyo lagu qasayo. waxaa la cabaa subaxa hore iyo duhurkii si la mid ah dawooyinka dhirta ka samaysan. rumaanka waxaa ku jirta antioxidants, waxaanu leeyahay astaamo awood badan kuwaasoo hoos u dhigi kara fursadaha samaysanka dhagaxaanta keliyaha iyo inay si sahlan jirka uga baxaan. waxaa kale oo rumaanka oo la miiray laga helaa maado yareynaysa in kaadidu isu bedesho acid, waxay sidaas oo kale ay ka hortagtaa isla markaana ay adkaysaa in dhagaxaanta keliyuhu ay samaysmaan. jooji milixda. cuntooyinka milixdu ku badan tahay waxay sare u qaadaan dhagaxaanta keliyaha maxaa yeelay waxa ay kordhiyaan xaddiga kaalshiyamta ee ku jirta kaadi mareenka. borotiinka. cunitaanka xaddi badan oo borotiin ah sida hilibka, beedka ama ukunta iyo kalluunka waxay sare u qaadaan heerka uric acid dhiigga, taas oo waxyeelaysa keliyaha. haddaad tahay qof leh dhagaxaanta keliyaha waxaa la soo jeedinayaa inay laga maarmaan tahay inaad yarayso cunitaanka cunooyinkaas. miisaanka. miisaan caafimaad leh iyo cunto caafimaadka waxtar leh. cuntooyinka fiber-ta leh waxaa loo tixgeliyaa badanka kuwa muhiima kana hortaga dhagaxa keliyaha iyo daweyntooda. ka fogow cabitaanada sida kuwa soodhaha leh, kaafiinta iyo alkoosha, badanaa waxay sare u qaadaan khatarta dhagaxaanta keliyaha. sidoo kale cuntada ay ku badan tahay sokortu, milixdu ama cusbadu iyo duxdu iyana waxay kordhiyaan halista dhagaxaanta keliyaha gala.